sanado badan ayaa dood laga qabay sida dawladnimada galmudug ay u saldhigan karto laakiin waayahan dambe dadaalkii iyo juhdiga aad bixiseen awgeed runtii galmudug waxay lahayd ama leedahay weli ififaalo aada u qurux badan oo aan aaminsanahay haddii laga sii shaqeeyo lasii anba qaado inay meel dheer gaari karto dadaal dheer kadib waxaa muuqatay in shaqadii galmudug aan ka qabanay ay aasaas u noqotay ma ahan keliya galmudug wanaaggeeda laakiin mustaqbalka dawladnimada soomaaliyeed dad badan oo soomaaliyeed oo aaminsanaa in dawladnimadii soomaaliyeed ay jirto masaafo aada u fog ayaa markii ay arkeen sida shacabka reer galmudug meel walba isugu soo baxeen gacanta ay ka geysteen in galmudug toosan tayaysan midnimo le la dhiso waxaa soo ifbaxday in soomaalidu ay dawladnimada soo jeclaan tusaalaha reer galmudug ay bixiyeen awgeed idinka haddaad tihiin xildhibaanada reer galmudug marka dad badan oo soomaaliyeed ayaa aaminsan in haddii galmudug ay noqoto dawlad goboleed dhisan maamul saxa hufan uu ka dhasho in soomaaliya inteeda kale ay hagaagayso si kale macnaheedu waxay tahay dad badan oo soomaaliyeed ayaa aaminsan furihii dawladnimada soomaaliyeed idinka gacantiina inuu ku jiro waana aaminsanahay meesha hadda aad joogtiin haddaa idinkoo isku duuban oo midaysan aad ka wada shaqaysaan iska ilaalisaan tafaraaro iska ilaalisaan degmo degmo iyo tuulo tuulo iska ilaalisaan qabiil iyo qolo bannaanka idinkaga timaada oo aada u midoodaan danta shacabka reer galmudug hagaajinta danta shacabka reer galmudug ayaa waxay xoog ku yeelanaysaa shacabka soomaaliyeed meel walbay joogaan wanaaggooda iyo hagaagooda deegaankaas wuxuu aasaas u yahay horumarka iyo midnimada iyo dawladnimada soomaaliyeed marka horta waxaan aada u jeclaan lahaa marka koowaad idinku inaad dhexdiina ka midaysan tihiin waadan kala qoqobnaynina dawladnimada ama tan federaalka ha ahaato ama dawlad goboleed ha ahaato aasaas waxaa u ah baarlamaanku waa aabbaha iyo hooyada dawladnimada waa meesha sharciga laga dejinayo waa meesha sharciga laga ilaalinayo waa meeshii loo noqonayay marka dawladnimada shaki soo galo baarlamaanku hadduu hagaagsan yahay dawladnimada inteeda kale waxay u badan tahay inay hagaagi karto sidaas daraaddeedaa la rabaa in mas-uuliyaddaas idinku aada leedihiin inaad ku tillaabsataan aniga galmudug waxay ii leedahay ahmiyad gaara waayo dhib badan aan ka soo wada marnay aniga idinku meeshii dhibkaas aan ka soo marnay oo ummadda soomaaliyeed hamigooda dawladnimo soo celisay ma rabno inay gadaal u laabato marna mana inaa ummadda soomaaliyeed mar kale qalbigooda xanuunsado sababtoo ah farxadday u qaadeen horumarka reer galmudug ay sameeyeen oo burburay awgeed ahmiyaddaas ay anigii idinkaba noo leedahay daraaddeed ayaan codsanayaa horta inta hadda noo hagaagsan inaanay gadaal u noqon inta noo dhiman oo shaqadii aan gacanta ku hayay inta aanan shaqada ka tegin oo ahayd in deegaanada la haysto la xoreeyo deked reer galmudug ay ku munaafacadsadaanna la dhammaystiro dib u dhisna lagu sameeyo dhaqaalana ay heshay galmudug waa shaqo aan isleeyahay waa la sii wadi karaa laakiin waa in marka hore laga shaqeeyaa meesha hadda ay joogtay in aanay gadaal uga noqon si meeshaas markaan ugu nimaadno aan uga sii wadi karno hamigii aan ka lahaynna aan hore usii dhigi karno
idinka caawa marka waxaan idinkugu yeeray dalku waxa uu galay xilli doorasho waddan walba oo dowladnimadiisu aanay weli xoog lahayn mar walbo doorasho la soo gaaro waxaa ku dhaca duufaan siyaasadeed sida loo maareeyo ayay ku xirnaan doontaa in maamulkeennu uu ka soo haro duufaantaas iyo inuu duufaanta la duulo maadaama aad tihiin xildhibaanadii reer galmudug mas-uuliyaddiina koowaad waa galmudug mas-uuliyaddiina koowaad ma ahan dowladda federaalka ma aha musharax gaar ah ma aha magaalo madaxda dalka mas-uuliyaddiina koowaad waa galmudug midaysan degan xasiloon u adeegaysa shacabkeeda sidaas daraaddeed waa inaad indhaha doorashada aad ku fiirinaysaan mar walba ay ahaato inaanay wax qalalaasaa ka dhalin maamul goboleedkaas hadda hana qaaday oose weli socod baradka oo u baahan in la xanaaneeyo u baahan in la ilaaliyo waddanku wuxuu ku jiraa xaalad adag oo loo baahan yahay in kulligeen aan isugu nimaadno oo la samato bixiyo waa aragtaan waxa hiiraan ka jira waa aragtaan xaaladda geda ka taagan waa aragtaan xamar waxa ka socda waxaa la rabaa in laga badbaadiyo galmudug waxaana looga badbaadin karaa dadka reer galmudug oo mas-uuliyiinta ah oo idinku ugu horreysaan inaad qaadataan mas-uuliyaddaas in galmudug dib loo soo dhiso waa adag tahay inay adag tahana anigaa og meeshaan soo maray wiilasha iyo gabdhaha weli dhulkooda cadowgu haysto rajadooda waxay ku xihan tahay idinku sidaa u dhaqantaan rajadooda waxay ku xihan tahay idinku galmudug sidaa u ilaalisaan dadka soomaaliyeed oo reer galmuduga oo aaminsan waa markii hadda la soo gaaray in horumar la helayo mustaqbalkooda waxay ku xihan yahay idinku sidaa u dhaqantaan arrimaha doorashooyinka ee xasaasiga ah ee dalka ka socda waxaa la rabaa reer galmudug haddaad tihiin in ahmiyaddiina koowaad ay ahaato waa inay galmudug ka dhacdaa doorasho aan dhibaato galmudug u keenin hadday ka dhacdo doorasho xumbaarsan kala qaybsanaan iyo tafaraaro ka soo hari maysaan waana gebteen mas-uuliyaddiina haddii ay ka dhacdo doorasho markii ay soo dhammaato galmudug mugdi gelisa mas-uuliyaddaasaa qayb ka tegi qofka mas-uulka ah marka laga rabo inuu wax qabto ma aha inay tahay marka ay wax hagaagsan yihiin waa marka ay wax halaysan yihiin ma aha marka laga rabo inuu wax qabto marka ay xaaladdu fududahay waa marka ay xaaladdu adag tahay ma aha marka go-aanku qof walba uu iftiin u yahay laakiin waa marka go-aanku qof walba uu humaag uga jiro ayaa laga rabaa qofka madaxda inay gaari karto go-aan masiiro u ah dadka uu markaas matala dadka soomaaliyeed waxay fiirinayaan galmudug sida aad uga maareysaan xaaladda siyaasadeed oo dalku hadda galay waxaan rabaa inaa idin xasuusiyo laxa weyna iga haya galmudug sababtoo wakti xoog badan iyo maskax aan soo gelinay kulligay marka wiilka iyo gabadha jooga degmooyinka weli cadowgu haysto waxay rajo ka qabaan inay matalaan dad soomaaliyeed oo reer galmudug ah oo ayaga u maqan inay xoreeyaan si ay u helaan nolosha idinku aada haysataan mid la mid ama dadka kale oo degan degmooyinka xorta marka waxaan idinkula talinayaa anigoo aaminsan inaad iga aqoon badan tihiin fahamsantihiinna waxaa idinkula talinayaa inaad foojignaataan oo u foojignaataan
midnimada iyo wadajirka dowladda iyo shacabka reer galmudug inaadan aqbalinina in nidaam doorasho oo laysku khilaafsan yahay meeshaas laga hirgeliyo inaadan aqbalinina inaad qayb ka noqotaan khalalaasa yimaado qof walbo idinka mida taariikhduu qayb ka noqon doonaa taariikhdaasna waxay ahaan doontaa wuxuu xildhibaan ahaa markii galmudug ay hore u kacday ama markay gadaal u dhacday fariintaydu marka waxay tahay waxaan rabnaa dalka inay doorasho ka dhacdo haddaan reer galmudug nahayna waxaan rabnaa inaanay eelo nagu reebin waxaan rabnaa doorashadaasi inaanay gadaal nooga dhigin horumarkii aan hiigsanayna ama ku tallaabsanayna waxaan rabnaa markii doorashadu dhammaato in reer galmudug ay kasii shaqaysan karaan shuruucdoodii dowlad dhiskoodii xaraynta degmooyinka iyo maamul wanaag waanay xallin khilaaf cusub ka shaqayn sababtoo ah waa ka soo gudubnay intiisa badan intaas ka sokow aniga waxaan ahay murashax madaxweyne sida dad kaloo badan ay yihiin waxaana u raadinayaa kursiga madaxweynenimada inaan dadka iyo dalka soomaaliyeed wax ugu qabto ee inaan ku fariisto u raadin maayo waxaana aaminsanahay in ummadda soomaaliyeed oo dhan ay ka faa'iidi doonto haddii ilaahay igu guuleeyo safarkaasaan u socdo waxaana aaminsanahay inay galmudug ku saldhigan doonto